Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. si wadwadin inaan ku soo dhaweeyo inaan kaygu furi doona ayadaha quraanka oo la ilaahay Ridwaan Maxamed kudana soo isla soo ugu furaayay xaga mi kugu soo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. رضوان أبو معتزين هاي وحنا نقول ترجعي آياتها القرآن كينا نحن هذا اللي كهر بلادين سيدو كله مدرسة حينو فردونا وزير كبليير تي سبورتيغا وزير إبراهيم عبد القادر هنسول ويسقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيعتي dhammaan dhalinyarada kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida marti sharafta kala duwan mas'uuliyiinta dhalinyarada hal abuurka si guud waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib magaca dhalinyaro run ahaantii waa magaca mug weyn wuxuu qaadaa cid walba oo da u dhaxaysa da'da ama 15 ilaa 40 da'da u dhaxaysa u qaadaa dadka inta da'da ku jira waxa laga helaa nooc walba waxa laga helaa mid fariida waxa laga helaa mid doqona waxa laga helaa mid hal abuura waxa laga helaa mid aan hal abuura ahayn waxa laga helaa mid aqoonyahana waxa laga helaa mid jaahila wada aad cajiib ah oo waxa weeyaan qof walba uu soo maro waxaan filayaa dadka halkan jooga inuuna ku jirin wax da'da dhaafsan waayo anagu ka xafiis ahaan dadkan maamulo age buu ku xidhan yahay qofka hadduu cirro yeesho ma maamulo meelo kale laga maamulaa dhalinyarada marka si guud waxaan kula dardaarmaya deegaankan caawa barnaamijkan u fadhino maadaama uu yahay hal abuur iyo hibo cid gaar u leh ay soo bandhigayso deegaankeennan ama deegaanka Soomaalida markii la yiraahdo waxa uu yahay hooy dadka hal abuurka ah markaad u fiirsato dadkii hal abuurayaasha ahaa ee taariikhda leh ee geyiga Soomaalida taariikhda ku leh
inta badan hadday doonaan ha ka hayaamaan oo halkan ha ka tagaan laakiin waxay ku dhasheen deegaanka markaan tusaale soo qaadano sayid maxamed cabdullahi xasan abwaan qaryan doodaan abwaan camaje abwaanadii kala duwan ee Soomaalida intooda badan abwaan singub inta badan hal abuurku deegaankan uu ka soo jeedaa I think inuu ka soo jeedo Yaxyana inuu deegaanka ka soo jeedo oo una marti ku ahayn saambilay marka deegaankani wuxuu mar walba ku faanaa dadka hal abuurka annaguna waxaan mar walba soo dhaweynaynaa dhalinyaro fara badan oo dhalinyartayada deegaanka ah oo ahayn kaliya dhalinyarada jigjiga ee laakiin guud ahaan deegaanka ah baa waxay isku soo abaabulayaan barnaamijyo kala duwan inay ka shaqeeyaan kuwa ka shaqeynaya mutadawacnimo oo dadkooda kaalmeynaya kuwa curis oo hal abuurkii ururinaya kuwa ka shaqeynaya dhalinyarada imika tusaale ahaan horseed oo kale ka shaqeynaya inay filmaan sameeyaan ay ka fariimo ku gudbinayaan dhalinyarada saaymo oo mutadawiciin oo dadkooda tabarta daran soo kobcinaya dhalinyarada curis mar walba xafiiskan wuxuu u aasaasan yahay idin sheegaya oo albaabadiisu ku furan yihiin dhalinyarada waxa kale dardaaraniga marka dhalinyaro mar walba aragtida caafimaadka qabta waan soo dhaweynaynaa barnaamijyo noocan oo kale inaad qabsataanna waan soo dhaweynaynaa sidaan kan idinku taageerayno yaan kuwa kale fara badan inaad qabsataanna idinku taageeraynaa laakiin idinka fariintan idin dhiibaya waxay tahay dhalinyarada deegaanku intiina iyo in kale oo fara badan oo caawina la joogin ayaa waxay u yihiin sawir ama muuqaal haddaynu inteennani muuqaalka dhalinyarada ka xumayno totally muuqaalka dhalinyarada wuu xumaanayaa haddaynu inteennu ku talagalay inaan dhalinyarada deegaanka qurxino wuu qurux badnaanayaa dhalinyarada deegaanka muuqaalkeedu hadda ka hor wixii jigjiga ka dhacay ee deegaankeena meelo ka mid ah ka dhacay dhalinyaradeena in la abaabulay magac loo sameeyay barnaamijka la dhexgeliyay waxay noqotay inuu sawir khaldan inaga baxo sax Soomaa sawir khaldan baa baxay sawirkii wadooyinkii lagu tirtirayay wada ka mid ah tan inay tahay iyo wada kale oo fara badan oo qaadi doontaan inay tahay baan filayaa inaad muuqaalkii xumaayay deegaankeena laga bixiyay inaad tirtirtaan waa idinka rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo ta kale dhalinyarada deegaanka fariin gaar ah u diraya waxa inta badan dhalinyaradu waan rajaynaya barnaamijkiina waa idin furay fariinta halkan aan rabay inaan uga faa'iideysto anagu xafiis ahaan idin soo gudbinayno dhalinyarada deegaanka waxaan u haynaa fursado ay tahay inay ka faa'iideystaan waxaan mar walba u jajabanahay xafiiskana u fadhina inaan idin adeegno da'daan idin sheegay kaliya aan u adeegnaa da'daas wax walba ay rabaan oo xilligaas suurtagal ah yaan u fulinaa waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaad ka faa'iideysan doontaan fursado fara badan oo xafiisku idin diyaariyay waxaan jecelahay sida walaalkeen Yaxye oo soo bandhigaya hal abuurkiisa in la helo shakhsiyaad deegaankeena ah oo iyagana soo bandhiga hal abuurkooda waxaan ka rabnaa naadiyada hadda aan magac dhaweeyay inay soo saaraan dadka talentiga ah waxaan idinka sameyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijyo TV-ga deegaankeena aad ku soo bandhigtaan talentigiina hal abuurkiina aan anagu waliba fadhiga hawada shubayno oo rabno idinku inaad si firiya uga faa'iideysataan hawadaas oo u isticmaashaan si aad hiladiina u soo bandhigtaan hal shay waan idinka dardaarmaya dhalinyaro qabiil ma tihidin waxaad tihiin Soomaali jinsigiinu waa Soomaali mid walba oo Soomaaliya jinsiyad wadaagtaan wadamada baa xad leh laakiin jinsigu xad ma leh qof walba oo Soomaaliya waa walaalka deegaanku dooni ha noqdo laakiin Soomaalinimada dhexdeeda dhalinyaradu ma aha inay aqbasho wax qabiil la yiraahdo qabiil ma ihi anigu idinkuna qabiil inaad noqotaan ma aha waxyaalaha soo baxaya inaan tirtiro dhammaanteen inaga inaga rabaa waxaan idinka codsanayaa inaan la halgalno waxyaalaha qurunka ah iyo waxyaalaha foolfoosha xun ee ay ka shaqeynayaan dad shakhsiyaad ah oo dana gaar ah leh ay ka shaqeynayaan inaan dhammaanteen la wada halgalno
waxaan nahay keliya Soomaali waxaan anigu ku faanayaa identity-gayga ama jinsiyadayda Soomaalinimada ah meel kale ma rabo sidoo walaalkeen iyo martida kale la socotay waxaan leeyahay deegaanku waa deegaankaagii soo bandhig maanta kaliya ma berina wax kale ha ka soo maaxdo kaalay soo bandhig saadaba wax kale ha ka soo maaxdo kaalay soo bandhig deegaanku waa deegaankaagii sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay ahna wasiirka ku-xigeenka xafiiska dadweynaha ciyaaraha أحمد حسن إيمان ويسوون الديار دينا إنه آخر لا تنكسع بين العيال شيوخ والورطانة سوى مع السلسلين أبدأ أنكم هذا عمليا وسيلكيان وأنا مع السيد هاي كل مرة دي وسيلكيان كي هذا ما شوي بفرنت هاي كابتن تعايل مدلالو iyo wax walba waxay uga barateen martida si khaasaan soo dhaweeyay Yaxya Cabdi Cali Yaxya waa mid kamid ah dhalinyarta dalka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland Yaxya wuxuu nooga soo boqolay Jamhuuriyaddii Soomaaliland khaasatan magaalada madaxdeeda Hargeysa يحيى باش ومد كميدا هل أبوردا سودانتا يحيى بقول شيء كل سجال بقول فريق سجاشنكي مجالات هرجيسا خاصة حافظ الشعب يحيى أنت وين كده بيجي وحاول كبر باري أو دكسيسي هوسة ده إلا صار هرجع علينا هذا كودا إسلام مجالات هرجيسا يحيى صدق له الأول كليا معه ومد كميدا دخاتيرتا سوماليلاند يحيى ومدرسين سنة كم تبينه وكشرا ما دام يحيى لاستير كيا وحنوران كرنا يحيى مركنو ومقعيرنا حنوران كرنا هلا يحيى مرنا دكتور يحيى عبد علي يحيى وسود وين يا أنا جاي لما نلقيت دجاجو وحنيتكو عصنا يحيى المدرسة بسود ويسار markii hore waxaan islahaa bandhiga odayaasha iman doona waan islahaayay da'da dhexe marka maansooyin canaan u badan baan soo diyaarsaday markii hore oo waxaan islahaa canaanta ku badisay laakiin kol hadii wasaaradda dhalinyarta oo soo hogaamisay dhalinyartii bandhigeenu wuxuu badan doonaa jacayl buu badan doonaa iyo mawaadiicda dhalinyarada hal maanso uun baan idinku darayaa hal maanso oo cusub oo aan doonayo inaan deegaanka ku furo deegaankani waxaan nasiib u yeeshay inuu noqdo deegaankii ugu horeeyay markii aan ka baxayay Soomaaliland meeshii ugu horeysay saddexda Soomaaliyeed kale meeshii ugu horeysay in imaado ayuu noqday mid kamid ah sababaha ugu waaweyn waxa weeyaan waxa aan jecelahay oo himihnadeyda ah hibadeyda ah oo suugaanta ah baan u arkayay inay tahay halkani manbicii ay ka soo unkantay dhulkani waa dhulkii suugaanyahanada waa dhulkii geela ugu badan ee Soomaalidu ku dhaqmi jiray waa dhulkii silsiladuhu ka bilaabmi jireen awoowayaashin waa dadka qiimaha iyo qaayahaas leh aan rajeynayna maanta ilaa hadda inaanu hiddasidihii iyo genetics-koogii aanay idinka baabi'in taasaa keenaysay markaa kalgacalka aynan halkan imaado erey baa jiray dhowr jeer lagu celceliyo ahaa Yaxya malaha deegaankan uu ka soo jeedaa waa run oo aan runta deegaankan aan ka soo jeedaa meel balle cabana la yiraahdo oo xadka saaran ayaan ka soo jeedaa laakiin Hargeysa aan ku koray caawa waxaan doonaynaa intaanan waxa aynu caawa meesha ka oranayno bilaabino waxaan doonaynaa mahad noqo dhalinyaradii soo dhaweysay ilaa wajaale iga soo dhaweysay ma dareemi karaysaan idinku qof aan ku garanayn ku hayb garanayn aydan waxba isku ahayn weligiina aydan is arag ma garanaysaa aydan xataa laga yaabaa Facebook aydan iska arag markoo laga yaabo intuu wajaale kuugu yimaado isagoo ku garanayn kalgacal halka intuu kuugu yimaado ku soo kaxeeyo
magaalo aanad garanayn ku keeno magaaladii ku baro ku hayo magaaladii ku hayso sidii ay tahay Hargeysa iyo magaaladii aan ku dhashay idinku ma cabiri karaysaan laakiin runtii taasaan caawa rabaa inaan idin cabiro mahadnaqeedana runtii ay yeelataan taasina waxay ka turjumaysaa oo sawir u tihiin runtii dawladda idinka dambaysa iyo cidda idin magacaaban baa sharaftaana leh oo u soo jiidisaan runtii si gaara wasaaradda dhalinyarada wasiir ku-xigeenka asxaabta si gaara Cabdisalaan Khadra Amiin ururada Saymo iyo maxay ahayd Gorof aad baan ugu mahad celinayaa intaa ka sakow caawa laakiin waxaan doonayaa inaynu run baynu isu yara sheegaynaa waxaan doonayaa inaad run yara dareentaan caawa in run la isu sheegaan doonayaa caawa marka way yar qaraadhanaysaa mararka qaar way macaanaanaysaa mararka qaar waad ra'yiga waad igu diidaysaa waxaan doonayaa inaynu baranno sida loo liqo qofka ra'yi duwan qof ku hadlaya waxaana doonayn qof ku hadlaya oo ka aragti duwan sidaad u dhageysan lahayd adigoon qorina qaadan feedna duuban sidaad qofka u dhageysan lahayd adiguna intaad bartaa u timaado aad oran lahayd Yaxyow aragtida anigu kuguma waafaqsani taasaynu maanta rabnaa inaynu bilowno waayo waa la dhisi karayaa hool inta leeg quruxda inta leeg waa la dhisi karayaa hal maalin oo jigjiga kacdo hoolashan iyo quruxdan dhan way baabiin karaysaa haddaan la dhisin aragtiyo haddaan la dhisin dhalin haddaan kalgacal iyo maxabo iyo jacayl la idinku beerin qurux kasta oo aad dhisataan hal maalin baa ku baabiinaysaa marka waxaynu doonaynaa maanta inaynu bilowno unugno arrinka ah qofka ka aragti duwan qof ka aragti duwan ka siyaasad duwan ka dal duwan ka dhaqan duwan sideebaad ma garanaysaaye saad u liqi lahayd taasaan doonayaa inaynu beerno maansada ugu horeysan bilaabaya waa maanso runtii la yar wada yaqaano ayaan doonayaa inaan ku furto fanaanku baa la yiraahdaa heesta loogu yaqaanaba ku furaa ama uu ugu dambaysiiyaa marka ta ugu horeysa waxaan doonayaa mid aad wada garanaysaan inaan ku bilaabo si aydan dareemin qof yar qalaad maansada magaceeda dallahaansha la yiraahdaa waxa weeyaan anigu waxaan ku soo koray magaalada yar caynkaas ah ee Hargeysa la yiraahdo laga yaabo aan laba ixtiraafsanayn iska hawlo badan iska mixnado badan inaad liqdo kalgacalkeeda inaad liqdo jacaylkeedu runtii mararka qaar waa wax aad u adag weeyaan laakiin waxay u baahan tahay inaad geesa badan ka soo istaagto haddaad boodhka eegto oo khaliya haddaad eegto waad ka tahriibi karaysaa haddaad madaxda oo khaliya eegto waad tahriibaysaa haddaad culimada eegto oo is haysta waad tahriibaysaa haddaad meeshaad eegta waxaad soonaysaa war meesha ka carar ayaad soonaysaa laakiin haddaad isu wada geyso oo aad isku xidho wax quruxsan baa ka soo baxaya marka maasadan dallahaansho aniga oo maalin meel hudheelaan soo galay markaa meel summer time la yiraahdo Hargeysa ku taala dabadeed shaar cad baan xidhnaa surwaalka waxaan xidhnaa ma xasuusto laakiin shaar cad baan xidhnaa marka kaabad buu lahaa hudheelku kolka kaabadii markaan marayay bay xilliyadan waxa lagu jiray markaa samarka ee dadka qurba joogu inoo soo noqdaan soo madarag xilliyadaas la mariyay marka saddex hablood halka fadhiiba isuul dabaaleeyay marka waan yar dareemay inay weytri moodeen amba waan yar dareemay marka laba mid baa banaan inaan ku raadin ninkii uu ku soo socdaa ninkii adoonaysi uu ku soo socdaa ninkii anigu weytri may ninkii ka soo shidan baa weytri maxaa ku dhacay laakiin noqon weydayo ilaahay maansadan uu ka waday moogtahay waxaan hablii baan u tagay hablii baan ku maxaa cunaysaan markaasay chicken iyo waxbay dalbadeeno way aan ka baxay markaa inamada meesha waan isnaqaanaa inamadii baan ku uri laba chicken iyo caynkaas iyo sharaab caynkaas soo qaada way soo qaadeen inankii baan soo raacay markaa inankii cuntada siday markaas cuntadii miskiisa u dhigay markaas ku inaadeer dee weyter maan ahayne laakiin shacniga iyo quruxdaasaan dhaafi kari waayey hablii meel baa gooday aduu habeenkii cashaa la ii qaaday xataa meeshii baan iska fadhiistay dabadeed meeshii baan iska fadhiistay markaa
marka habluhu habla aad u wanaagsan hablaha qurbahana af Soomaaliga ku yara adag marka qofku haduu af Soomaaliga ku yara adag hayna waad ka helaysaaba maxaa tiri ku yara cali eriga halka ku yara cali dabadeed show markaanu sira wareysanay inantu in badan ba may maqnayne waxay maqnayd intan baasaboorka lagu soo qaato 5 sano iyo wax noocaas 5-6 sano meelahaas ay maqnayd dabadeed on is wareysanay markaan waxaan isleeyahay sheekadii dheerayd gale halkii sare ka soo wareeg baan isleeyahay marka in adeero miyaa lagu qabaayo halkaas aan ka soo wareegay anigu moogtay dabadeed iyaduna meel yar sakuun bay gashaa maanta gaarigan watayo traafiga ay qabtay 2 jeer guess what wixii weydii laaluush sidii weydii how come waxa ku hadlaysaa marka miyaa lagu qabaa ma aanay iga dabadeed adigu waxay sidii socotaba hadda sukaaya daawan lahayd qosolka idinka dhamaan lahaa marka ana meel dheer umbaan isla ka soo wareegayna dalcad bay saartaa dhaski maanta samboorka sanku inay casi maragtaa taa markaasaan ku inaad reede marka dhaska meesha yaala traafiga maanta laaluushay mixnaday soo aragtay oo dhan aniga dhakada iga saaraysa moogtay inaan ka ardayga miskiinka xoogay marka micnaheedu waa maxay halka maxaa ka yar fahmaysaa halka waxaad ka fahmaysaa inay leedahay dalkan adiga leh soo ma hadde waxay leedahay dalkan adiga leh halkanna waa tan ka soo baxsatay ee dalkayga hooyaanimo marka waxaan garan waayay inantu meel allaaliye meel ay leedahay iyadu way halkaana male waa tiigula halkan adaale boorkeedii mixnadeedii waxaan haw kam sidee ku dhacdaa waa tan aniga igu la mugtay kaasoo inaad reede adigu taamiyaad leedahay maya laakiin waxaan ka war adigu taamiyaad leedahay maya tan hadaba aniga leh adigu meel samaysa baan ku urtay meel u dhaxaysa samaysa ma boorkeeda ana leh maansa marka ka curatay dallahan shalay yiraahdo waxa weeyaan idinku ma dareemaysaan imaka aniga laftarkaygu si fiican ma dareemayo laakiin waxa lahaanshiyaha la yiraahdaa micna badan buu ku fadhiyaa shaarka aan maanta anigu xidhanahay laga yaabaa inuu ka ugu raqiisan yahay laakiin markii aan soo iibsanayay waayihii aan ku soo iibsanayay baan garanayaa halkii aan ka soo iibsaday baan garanayaa qiimihii la iga soo siiyay baan garanayaa lacagtii la iga soo siiyay haba yaraatee sidii ay mushaharkayga iyo nus saacahayga uga go'dayd baan garanayaa marka aniga shaarkaasi micna ka badan suudka aad xidhan tahay qaaliga buu ii samaynayaa ويتنقي يعني كسر أنا ويتنقي مركب ما أنت بحين كود هذا لنا لهانشية عين كاسة تيجي أنت اللي بعد يلان كريسادو ويوحنا شام عذهني يوحنا ديجانا يسوي يوحنا ردم وبين هدي أنا تلاهين تيجي وأنا دريمي لهانشية مالين بعد كتهريب بس مالين بعد وحين نهايون تتشانس أي كل وفان هذين يوم بيننا هدي أنا دريمي نتمشى لهذا هاي marka maansadan bilaaban doona meelaha qaar marka ay hargeysa iyo burca iyo waxba ku jirjiraya waxaan doonayaa inaad adigu ku bedelato jigjiga iyo qabri bayaxyadu ku bedela meelahaagi saama ku yeeshina waxaan isiri maansadan way qaataan oo qola koonfur la tagtay oo meel magacyo adag bay xataa ku bedeleeno dabadeed waxaan isiri maanta ma ku badbadashaa dawlad deegaanka gabigeedo haddana waxaan isiri quruxda maansada yar dhiman doonta baan isiri marka meesha aad adigu ku aragto waxaad ku bedelataa deegaankaagii ku bedelo laakiin aynu isla fahanno mafhuumka iyo conceptka ay maansadu sidoo aynu isla fahanno marka hore دبي كمله عمارة مليه دارها مريكان مدق حيبها ميامي طهران كما قضوا السليدة تعدى فلبين مآدين تتكن لما كورين إسبانيش عدكلا أمدودو وحيدة وحان أهي روح دالكيسة تلقاذو له دحجوغا
intaan dhoofoon ka duulo daaliye herer iyo hargeysa xiisuhu London ima dulgeeyo haddaanan duleedka awdal aagaa dilayow mamjoogin dabeed bari iyo guntiisa ku soo arag baar qabdoobsha gaaroodi u doonan caano miyaan u aqaan dalxiisba marka reerkiin iyo beertiinni ku noqotay ee caanegeel lagu soo siiyo caloosha ku socotay qodaxi kugu tagtay haddii laakiin Nairobi lagu geeyo ama Malaysia ama meelaha lagu yar geeyo waxaad moodaysaa nin seminar u baxay ilaa aad beertiinni tagto caanegeel soo cabto dalxiis dareemi maysid anoo gudin daabka haystaa miyaan dawarafacayga miyaan gaal cayd u doonan eedaan dacwadiyo salaada anoo maqla daakiraada miyaan karayaa durbaano inaan ka dulkaco kaniisad fooqyada dheeree dahaadhan daaraha Norway ku yaala kumaan doorteen habeenna kharaabad duntoo ku taala daamiya shacabkii Hargeysa waxaweyaan kharaabada de baaskiladan ku ag ciyaari jirnay baranboorigan ku ciyaari jirnay bari baan ka soo dhacay waan ku takhramay xasuus bay aniga kharaabada iyo geedkan iyo dhagaxan ay sameynayaan laakiin fooq dheer oo meel ka taagan oo aanan garanayn ba cidii dhistay micna Allah iyo micna uu sameynaya ma jirto moogtahay dhulkiiyo degalkiiyo waxayga walow qashin daadsan buuxo siyaasi intuu duqeeyay qabyaalad walow dir soocday dugsiyo gurigaan dhex seexdo walow daftiraa abeeso fulaa digar rago yaqaane ka guur hanku dooran maayo haddii maanta gurigiina aad leedihiin haddii uu xargalo ama abeesa gasho oo reerka rarto koron reer kale xaafada jaarka aad u guurtaan ka warama waa mushkilad moogtay ama aad gurigaba ka guurtaan waxay muujinaysaa inaanad guriga lahayn laakiin gurigu hadduu kira kugu yahay oo uu xargalo albaabadu daataan oo abeesa gasho oo balaaya ku dhacdo de ninkii guriga lahaa baad hadlaysaa war gurigii waan kaaga guurnaan oo gurigan kuma jiri karayno marka dalku waa labadaas ama waad leedahay oo abeesadaad ka soo saari waxaad ka soo saari adaa hagaajisan ama dadkii lahaa baad la hadli cid kale aad leen ku sugaysaa meesha adigu ma lihiday diyaarada mooto guuxa dabaabada gaari roora ma curin miig iyo wax duula ma tegin samada dusheenna dagaarana maan cagaynin markaanse dabuubahayga duntiyo gabay maansadayda dux iyo hal abuurka sheegto ayaan faanaa in doora Soomaalidu de diyaaradana ma samayso Toyota ma samayso Soomaalida waxa la waa the poet nation baa la dhahaa ummadii af Soomaaliga waa ummadii gabayga waxaad samaysaana waa gabayga waxaad samayso ku faan markaa ideeqday tanay dihato dhowrtay tanaan degal u qaybay tanaa lixle loo danqaabay koosaar loo dilay qaboono tanaa Axmed Guray u dooday darwiish ku adduunyo seegay tanaan taariikha duuga ilaa dura soo yagleeshay ilaah ka sokow dusheeda tanaan leeyahay duleedba maansadaas halkaas ay ku dhantahay waxaan ku xigsiinaynaa maanseero la yiraahdo magaceeda hadmaad jeclaanaysaa waxa dhacday maalmaha kamida jacaylkaasi fara passport inuu hayaayo weeyaan suugaanyahanadu marna qiso uu isaga ku saabsan buu ka sameeyaa marna wuxuu ka sameeyaa qiso cid kale u sheegatay inan baa maalin markaa igu tiri inan baan aad u jecelahayo inankii iga soo hagaagi laayay wax laaliyo wuxuu doonayay garan maayo marka waan iska dhaafay dhowr jeer baan iska dhaafay maalintii labaad bay igu tiri inankii waan la hadlayo maanta waan ku xanaaqo waxaan ku iri hadmaad jeclaanaysaa iga taa kaftanko ereygaas markay soo jiitay ereygaara hadmaad jeclaanaysaa marka gabadhii waan sheekadii ka sii guray marka sheekadan waxa weeyaan gabadh hadlaysa oo wiil la hadlaysa oo kule de qofka ka soo hagaag waxa rag marka labun bay sameeyaan ragu ninkii gabadhay guursanayaan way sii yaqaanaan moogti ragu gabadhay guursanayaan way sii yaqaanaan ta kalena way sii yaqaanaan laakiin habluhu ma kala yaqaanaan ta ay yihiin hadba tii la guursanayay inay yihiin iyo tii kale laakiin ninku sheedu ka sii garanayaa ta uu guursanayo iyo ta aanu guursanin halkaas uu ka sii garanay maybu kooranayaa
tan waan la socdaa uun meelahaas la fadhiisana marka waxa weeye laakiin habluhu ma kala yaqaanaan tahay baanay kala garanay marka halka dambe ku soo maansooyinka dambe waxa ku jirta iyaguna siday u yoolbaadhaan ay u ogaadaan inay tahay tii rasmiga ahayd iyo inay tahay tii beenbeen tahay halka dambe ku jirta laakiin maansan waxay ka hadlaysaa gabadh nin kule iga soo hagaag oo tii rasmiga ahayd iga dhig marka sidan aan u hadlayaa waxa weeyaan haddii aan qabyaaladii wax idinka wacdiyay imka waan qaylin lahaa moogtay laakiin sanoo hadlaya waxa weeyaan sidii maansooyinka jacaylka loo akhriyay lahaa marka meel dhex markii gaadho codkaygu uu yara dallacmaya waxay leedahay inantu markaad tahay ruux wax jecel waxaad tahay ruux la jaray cadkiya seedaha jirkoo loo dhiibay qofkuu jantoo ku jira barya tuugsi uu ku doonaya jeexa maqan muddaan kula joogayo muddaan jaalkaaga iyo ahaa jeexaaga midig muddaan samir jiidayoon sidii jirid aasayoon rajiyo ku waraabin jiray mar buu ku jaleeciyood ka raysan jadeer wacee hadmaad i jeclaanaysaa hunoy lama jila dareen hunoy lama kara jibaad jimiimica igu lamaan miyaa lagu helaa jabnaan dareen inannima jiraa carjuuq igu yidhi dhahoo ilmadanaan jaxaasayaa jawaab uma noqon kartee hadmaad i jeclaanaysaa sidii laba aan isjarin amaba aan jiqisku noqon intay isku jeex noqdeen jalbeebtama oo kaftama isdhowrtoo isu jamciya hadmaan kula cuni jidiin oo riya kuu noqon jamaal jaadkaagaa iiyah gaar jooggaagaa iiyah maan jaahaagaa iiyah muuq naftaydaa kuu jajaban adoo iga jeestay baa qalbigu kuu sii jilcaa jibbaar xiisuhu noqdaa naf baa tahay igu jirtee miyaankaa niyad jabaa jannaad ii tahay adduun jaxiimiya aan u maray cadaab iyo jahannamee macaan iga jiidhnaxoo idhaafi jidkaa siraad ma joogo ma jiifsan karo jariya dabar bay hayoo qaraar ma jihaysan karo qayrkaa ma jillaaban karo jirani awgaa dhibbani ku jeellani sabab la'aan xabsiya jeelbaan dhex aal weedhaaduna jeedal iyo ciqaab iyo weyjirdile waxaanse ku jeel baxaa jeefaafana aan helaa cadkayga intaanad jarin indhaha kugu jeedsadee jalleecada kugu xadee adaan ragga kaa jantee hadmaad i jeclaanaysaa waxaan kuu jujuubayaa naf aan run ka jiidayaan samow jeeniga hayaa waxaan la jihaadayaa damiirkaygoo jactaday jaandheertayduu naco aduu jaallow rabaa jawaab inuu kaa helee hadmaad i jeclaanaysaa adoo jiif tegay maxaan anigu jaha wareeray fikir maxaan jacbur heella iyo jiiftiya kuu qoray odhaah maxaan jabaqdaada iyo jaantaada dhegaystay gelin anoo jiran oo bukaa haddii juucjuuc ku helo jabkaagu idhiig baxshee miyaan beer jixinjixaa talow kugu jirin walaal way dhammaatay maansidaasna maansadan in yar baynu yar nasannay marna qalbigaa la yar doojinayaa marna maskaxdaa lala hadlayaa in yar baynu maskaxda la yar hadlaynaa markaa iminka maansida magaceeda soomaalinimaa la yidhaahdaa hargeysa malabaaba la eriyan lahaa haddaan kusoo bandhiga maansida moogta maansida magaceeda waxaa la yidhaahdaa soomaalinimo waxa weeyaan qofka soomaaliga mushkilad baa haysataa waa bilaabaadi sooco qofka soomaaligii identity crisis baa ku dhaca qofka soomaaliga mar waa islaam oo waa muslin oo sunni weeyaan marna waa afrikaan marna waa soomaali marna waa qabiil marna waa dawlad dabadeed qofku soomaaliga gebigiisuba wuxuu ku jiraa wuu israadinayaa wax allaaliya wuxuu sheegtaa buu garan laayaa halkan intii aan joogay iyo halkaa markii aan joogayba waxaan aad u dareemay
qofka Soomaaliga inuu israadinayo cid uu yahay hargeysa markaan joogo waxa laaliya waxaan sheegtaan garan waaya ma Soomaali baan sheegtaa Somalilander baan sheegtaa ma qabiilkaygaan sheegtaa waxa laaliya waxaad sheegataad garan waaysa dibad maxaa dhacaysa markaad soo yara socoteed Soomaalida soo dhex gasho markaad Afrika joogto Afrikaan baad sheeganaysaa Carabta hadaad dhex gasho Muslim baad sheeganaysaa Soomaalida markaad soo dhigaato Soomaali baad leedahay Soomaali markaad gudaha yar gasho waxaad leedahay Somaliland markaad si yar gasho hargeysa markaad qabiilkaaga daanta degto mixnad caynkaas furmaysa halkanna markaa mushkilad taas oo kala ah laakiin kaba sii daran baa jirta way anaga cidina lama degto laakiin idinka waxa idin la dega qabiilooyin kale iyo ummado kale iyo sinjiyada kale idin la dega idinku markaa maansadan waa nooga baahi badantiin way anaga Soomaali baa nagu xeersan laakiin idinka waxa idinku dhinac waxa idinka xiga qowmiyada kale idinka xiga waliba qowmiyadaha kalena dawlad baa wadaagtaan inaad isqeexi taqaanaa kolka oo waxa aad tahay aad isqeexi taqaanaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa inaad dalkan ku faanto oo aad jigjiga ku faanto magaalada ku faanto haddaad si isqeexi kari weydo oo waxa tahay aad isqeexi kari weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa oo garan kari weydo kani wuxuu ku yahay kana wuxuu ku yahay haddaad garan weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa aan soo durko waliba nin baa markaa maalin la soo hadlay maasadu say ku timi marka garan maayo meel buu joogaa wuxuu yiri barnaamij baan daawaday heblaaya ku wareysanaysa caynka waxaan doonayaa inaan ku hambaleeyo waa sax wal mahadsantaan ku yiri uu soo durka markaa wuxuu igu yiri waxaan rajaynayaa inaad tahay dadka aqligooga furan yahay ee aan Soomaali diidka ahayn aaminsan midnimada Soomaaliyeed aan Soomaalida diidanayn marka xaafada aabiye ma leer fidhiyo aan ka soo kacay maxaad u jeedaa baan ku yiri marka Soomaalida diidanayn dib waxaan boqolkan calan iyo mixnadahan la inagu furay iyo waxaan madaxaaba ma garanaysaa marka Soomaali diid weeyaan waxaasi markaasaan ku yiri inteed qurbaha joogtay markaas igu yiri wallahi carruurtaadan gabayada markii hore igu laamka carruurtaadan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay marka carruurtayda ayaan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay way marka 30 sanaad qorbo ku maqnayd 30 sanaad dalkii arag carruurtaadu maba xiiseeyaan oo gabayadaydaad ku sasabtaa adigii intaasaad maqnayd dalkaaga ma arag labadeena iyama Soomaalisan baan ku dhig markaa ana hargeysaan ku dhashaan ku koray iyama Soomaalisan labadeena maxaan uga socdaa markaa dareenka ku dhalatay waa qisada laakiin maxaan uga socdaa waxaan uga socdaa waxa weeyaan Soomaalidu waxay aad iskugu khaladaa sinjiyada iyo dawladnimada sinjiyadaadu waa Soomaali haddaad 100 calan taagato 100 calanka Israa'iil haddaad bartaa ka taagato Soomaali un baad ahaanaysaa sinjiyadaada ninka isku dayay inuu ka bedelo ama isku dayay ku raad haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Hargeysa tag haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Muqdisho tag maaha Soomaalinimadu waa inay magaaladaada taala Soomaalinimada jigjiga ka weeyday Soomaalinimada aad jigjiga ka weeyday Hargeysana ka heli maysid Muqdishona ka heli maysid Soomaalinimadaadu waa inay bartaa taala ninka isku daya inuu barxo sinjiyadaada ninka isku daya inuu barxo waa inaad la dagaalantaa ha ogolaanin marna ha ogolaanin mushkilad baa markaa jirta halka hore markaad u socoteed koonfur tagtana Soomaalinimadii calan bay noqotay Hargeysa markaad joogtana war inaga u daayay Soomaalinimada mixnadana ka sheekeynaya waa maxay haystaba haystaan Soomaalinimada Hargeysana Soomaalinimadii baa lagu bedeshay siyaasad halka shishana waxaad moodaa in siyaasadii gibigeediba laga dhigtay Soomaalinimo imika tusaalayn siinaya madaxweynaha Soomaaliyeed waayo madaxweyne Soomaaliyeed ku jooga imika hadduu jiro mee ila inagu madaxweyne inoo wada yahay ma jiro sinjiyadu siyaasad maaha sinjiyadu waa afka waa dhaqanka waa taariikhda waa ummadnimada weeyaan siyaasadu se way ka duwan tahay siyaasadu way isbedbedeshaa Soomaalidu Itoobiya noqon kartaa Soomaalidu Kenya noqon kartaa Soomaalidu Djibouti bay noqon kartaa Soomaalidu Soomaaliya noqon kartaa laakiin haddii labada la isaga ka daro waxa kugu dhacaysa waad iskaran waayaysaa
waxaas maxaan sheegtaa baad oranaysa waxaad sheegataad garan waayaysaa dibad waxa suura gala ninka calanka haysta inuu kuraado iskaga bax calanka maad seetaa may matiid Soomaali iskaga bax aad maad seetaa calanka buluuga may ka bax Soomaalinimada aad maad seetaa iskaga bax Soomaalinimada calanka buluuga soo qaata dikal ka bax Soomaalinimada waxaan anigu aaminsanahay laga yaabaa inay iga aragti duwantiin caawana rabaa inaan idin soo bandhigay waxa weeyaan sinjiyadu calan ma yeelato dawlad baa calan yeelata hadda igu waafaqsantiin iyo hadii kaleba sinjiyad ma yeelato calan laakiin waxa yeelata dawlad baa yeelata dawladda Itoobiya calan leh dawladda Djibouti baa calan leh dawladda Kenya calan leh Somaliland waan ku darsanaa anagu iyo dawladda Somaliland calan kale waxaan ka wadaa markaa waa maxay waxaan ka wadaa taadama hoos ka tuur bay laakiin laynama ictiraafsanay laakiin waynu ku tuuraynaa waxaan ka wadaa waxaan markaa mafhuumka aan doonayay inaan idin sheegaa waxa weeyaan hadaa aqbashaan inaad Soomaalinimada Muqdisho iyo Hargeysa ugu tagtaan Soomaalinimada waa la idinka saari doonaa maalin dhow ha ogolaadina in la idinka saaro Soomaalinimada waxa ogaataan jigjigayaa ka Soomaalisan maanta الله ندي كده هريه تجيء يا كسوماليسن لبا أنت هسه كنا قرني بقى وياشين هل كنت جنايين أو قوميات كستلد جنايدين هذا ما أنت مكان تجيء شوكته والله بانو قف حبش كودرين في سوماليا والله ما ودي تجي استدل يرد لورن في سوماليا قف كرير تجيء في سوماليا كبر احترام أو صعوية أنت هسه كنا قرنين وحلد جنايدين قوميات كلدون يا إيدين كيدين كسوماليس هرجيسة ما عرفتان نص با إنجليز الوضع هذا قف مركب هي تقول هاف إنجليز كهذا deegaan kan yaa ka Soomaalisan deegaankan waa deegaankii geela ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqna waa deegaankii gabayaaga ugu waaweyn ka soo bixi jiray deegaankan hadii Soomaalinimadiisa shaki la geliyo oo shaki loo geliyo maadaama calan kala sito yaa Soomaali noqonaya waxa isku daydaan markaa khaanada sinjiyadu waa khaanad aan muran galeyn magaaladaadana laga qaataa Soomaalinimada iyo sinjiyadaada meel kale looma doonto anigu Soomaalinimadeeda Muqdisho uma doonanayo Hargeysa waa inay igu timaada ano Hargeysa ku koray oo ku dhashay inta hal laga qofkii gura Soomaali mid halkeen Soomaali ku noqonaya halkee jigjiga adoo jooga hadaad Soomaali ku noqon weydo jigjiga halkeed ku noqonaysaa Soomaali ku noqon maysid meel la siyaasaddu laakiin waa sheeko kale siyaasadda idinka ikhtiyaar kale هل دور كينا جوجا سياسيين تينا جو مال الله السماء مدوجة هذا واركتان سياسي السماء مدوجة تقيدين كوسوماليا مال الله ليه مش هادون تان كودر صدق إيدين كوسوماليا سياسة تكمل حدنا شلي اللي حدين كي هرجيسي ولا أوي وحلو أوي مدني مصومة ما أنتنا لما صو هذا القاعدة كرم مكان موحد لورنا شلي الصومالي بهاي ما أنتنا وقالوا هيك سياسة هو يثبت بدشاه شلي ميل بعدنا وأركي كريسا ما أنت وما أركي كريسين شلي دولة بعد كتر سنت هاي ما أنت كمتر سياسة وسياسة يثبت بدشاه اللي بعتهم ماله دورش على جهلا والديمقراطية كل بدولة نمي كحرن تاي تاس علم بيلاد هاي باسبور بيلاد هاي لكن سنجية دين مرنا غرغرتنا هاي جلينا هنا أقولاننا إن سنجية دين غرغرت اللي جليو وح أوجه الرئي تاي وصومالي وح أوجه الرئي تاي وصومالي markaasaad noqonaysaa dawladdaada iyo baasaboorka aad seetay calanka aad seeto calankaagana taa ku sido sinjiyadaadana bartaa ku sido yaan la isku dayin labada la iska ka dhex dhigo oo lagu dhaas Soomaali ma tiid hadaanad calanka Soomaaliland sidan Soomaali ma tiid hadaanad ka buluuga sidan yaan taa la isku in la iska ka dhex dhigo marnaba ha yeelin anigu waa sidan aaminsanahay Yaxya ahaan waa sidan aaminsanahay laakiin kulli way iga aragti duwanaan kareysaan marka waxaan doonayaa inaynu baranno inaynu kala aragti duwanaan karayno la aqbalina karayo lana liqi karayo in la kala aragti duwanaado inagoo isqancin iyo wada hadal ku dhameynayna ma sida magaceeda Soomaalinimo la yiraahdaa Soomaalinimadii marka waa la khalad fahmay Soomaalinimadii sinjiyada ahayd baa siyaasad laga dhigay waxaynu doonaynaa marka inaynu qeexno waxay Soomaalinimadu tahay ma sadana marka qeexaysa تحي واسربيب سورين روح لها إسقو كسمان لقى سقرته هود بديت سعو عكت سار ليري مرنا واسفين سجد إيا إلين
sixid iyo cadayn kolka shay samow sidii qorax ahaa caad loo sasabo luun kugu sarnaa sacabkaaga oo subag laga shubtaa sahay kuu noqdee baabaca saluug surmi kaama tiro sir ma sheegayee waxaan uga socdaa soomaalinimo mala saylad iyo sicir lagu gado han siyaasadeed lama siisan karo han siyaasadeed lama siisan karo diintaas soo waa kan qeexinteedii diintaas soo dhaqanka u sada dharku waa u sumad soorta u cada afku waa u sahay sabad iyo kobtuna saameyn ku leh soomaalinimo qof su'aalayow calan kuma suntana cidma seeranoo qolo kuma sidkana mana aha salaanin siyaasiyii meel sare ku koro sir maaha oo lama sii sarrifo lama idhaahdo anaa kaa soomaalisan anaa kaa lama sii sarrifo soomaali waa soomaali uun sir maaha oo lama sii sarrifo waa siman soomaalidoo waa sawrac iyo sinji aan ummada kaga soocanoo ma sariigan karo sagaal baasaboor ninka sii sitow soomaalinimo lama sayri karo soomaalinimo qof ka saaris yidhi sibiq iima tiro waa saxeex rabbigu idul saarayo xididkeeda sugan uma siibi karo haddii lagu sidkoo inta lagu sibciyo gaf siyaasi galay dawo saxal tirtiya looga dhiga sabiib wax ma saacidee sunta iyo ladhkaa seedaha gasho darsanaadho oo soomaalinimo saska qaadayay samankaas dhashaa haddii maanta balaaya dhacdo oo la islaayo la isxasuuqo oon ku dhahdo soomaalida ka mas-uulahayd ka waran dee kuwii la laayay way ka xanaaqayaan soomaalinimada soo maha soomaalinimada kolkaa ma qaadata iyadu gefka ma qaadata xataa haddii qof wax laayo qof wax xasuuqo qofkaasaa xasuuqa xataa qabiilkiisa maaha qofkaasunbaa ka mas-uula cid kale mas-uulka ma aha qabiilkiisu mas-uulka ma aha sinjiyada soomaalida oo dhan qofkaa xasuuqa sameeyey qofkaa wax laayayunbaa mas-uulka ah haddiise lagu sugo oo soomaalinimada la marmariyo dee qaar ka boodaa soo baxaya soomaalinimada saska qaadaya soo maaha waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifaduu yahe waa qurux markaan leenahay ereyda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maxayga qurux badanaa magacu markaas la leeyahay laakiin haddii uskaga laynaga marmariyo kuwa uskaga la marmariyay baa ka xanaaqi doona magaca marka haynaga marmarinina uskaga siyaasadda Soomaalinimada haynaga marmarinina waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifaduu yahe sahan aanay wadan magac aanay suran madax aanay sidan yaan lagu sawirin yay saad u noqon sad bursiima iyo ninka saayid raba yay soo xisiyo dadka seexad farin marna sayma iyo cunfi lagu sallimin salfudaydka jaan waan salow badnee saajin raba dagaal yuu igu sasabin sidaheeda bilan yaan laygu sirin soomaalinimo waa jacayl sadriga kaa saaqaye midna caybku simay yaan laygu surin yaan siidhi wade koox kale la sifan qaladkayga sixin sababaynta guud waxaan uga socdaa way salguurtayo way simbiidhayo saxal baa galo waa lagu saxdaye soomaalinimo haddii lagu siqoo lagu kala sad yahay haddii baasha la kala xigo oo la kala leeyahay haddii baasha la kala leeyahay soomaalinimo haddii lagu siqoo lagu kala sad yahay siinay baan ku koray dugsigii sariya kaygii sokaba kobtanaan ku sugay saan qaadayo ilaa saakadaas sikin maan ka tegin af soomaaligana suugaan tuxlaan siin kuu marshay soomaalinimo sakad iga xiga maansadaas intaasay ku eg tahay waynu israacinayna maadaama waqtigu inagu yara gaaban yahay maansada magaceeda ku xigta magaceeda waxaa la dhahdaa layaab maansa yaroo gaaban marka halabuur kastaa saxeexa uu leeyahay waxbaa lagu gartaa halabuur kasta
suugaanyahan kasta dad beedkiisa akhrido waxaad dareemaysaa inuu beedkan yahay beedkii hebel beedkii sayidka beedkii qamaan waad dareemaysaa beedkaas inuu hebel sameeyey waayo farshaxankiisa aad garanaysaa maansani waxay ka kooban tahay hal erey oo qura layaab ereyga layaab oo qura ayay ka kooban tahay ereygaasa marna fal noqonaya marna falkaaban noqonaya marna magac noqonaya marna sumad noqonaya maalin maalmaha ka mida markaa baa nin baa wax uu sameeyey waxaan uga soo qaadaa dabadeed runtu maxaa waxaan u samaynaysaa baan kuri markaa ku kale yimid waxaan waa la sameeyaa maalin kasta maxaa kugu dhacay anigu markaa waxaan la yaabanahay kan waxa uu sameeyey soo maaha kan kalena anigu ila yaaban yahay uu leeyahay waxaan maalin kasta waa la sameeyaa maxaa kugu dhacay markaa waa la yaabka la yaabay maalin kastana way dhacdaa haddaad wadada qashin ku tuurto warkada aad tiraahdo waa lagu wada tuuray maxaa kugu dhacay meesha manage jigaan lagu dhada ka war waa la yaabay markaa xumaan baad ka yaabtay xumaantii aad ka yaabtay baa adiga lagula sii yaabay la yaab weli shay ma yaabtay u yeedhay nimaan la yaabin markaa tidhi waa la yaabna la yaabka ma kuu xambaaray adoo libilaab la yaaban la yaabkan dushaada saaran maansada ma la yaab dhawaaqday la yaabkan la yaabay haddaad adiguna la yaabto la yaabka waxaa lahaaday la yaabadankii uu yeedhay kii markii ugu horeysa wadada ku tuuray khashinkaa leh yaabka naftaydu qofay la yaabtay markay ka yaabtay u yaabtay markay la yaabtay ayaan weli ruux la yaaban la arag lana maqal la yaabiye adduunyadan aan la yaabay dad baa jira aan la yaabin la yaabka markaad la yaabto dad baaba la yaab ka qaada la yaab sababtaad u yaabtay waxaa jira ruux la yaaban adduunyadan aan la yaabay la yaabka markaan abbaaro ku sheego la yaaban yaabay ka yaaba sidaan la yaabka la yaab ugu qaab tilmaamay la yaabadu kala la yaabsan dadkuna kala goor la yaaban ha yaabin kolkaan la yaabka ku sheego la yaaban yaabay la yaabadan maansadaydan la yaab malakii la yaabay haddaad maansadan la yaabto adigu la yaab ma lihid moogtahay la yaabadan maansadaydan la yaab malakii la yaabay kulley adiguba la yaabtay la yaabadan aan dhuraayo la yaabse waxaa lahaaday la yaabba nimaan ka qaadin la yaabka wixii mar keenay kii aan la yaabin wixii markii ugu horeysay aan anigu la yaabay baa la yaab kale la yaab iga yaabka baaji ii hiili la yaab mar uunbal la yaab ila yaab hadduunbal ha yaabo dadku iyo la yaabbal la yaab isu sheeg la yaabkan la yaabba naftaydan yaaban alla ilaahay waa la yaabay la yaab kala jooji yaabka u jooji dadaan la yaabku ahaynba la yaabka shooda waa dhamaatay mahsaasna maansada ku xigta magaceeda waxaa la yidhaahdaa dheelmasho laba maansoo jacayl un baynu kusoo xidhaynaa dheelmasho waxa weeyaan inagu jacaylada waxaynu maqalnaa un guulaystay annagu dejiyeysanay un baynu maqalnaa moogtahay jacayladaas ma badanka loo gabiyaa laakiin waxaa jira qof kasta oo guursaday ama qof kasta oo guurdoona ilaa 5 jeer buu ayuu ka soo xumaaday xiriir ilaa 5-6 jeer buu xiriir ka soo xumaanaya marka hore marka nacabka ha u jabin laakiin iska raadso wax adiga hadda boqol ka soo xumaadeen maansada marka waxay ka waramaysaa imika mushkiladda jirta waxa weeyaan qofkii oo istaqaaneen oo wada socoteen in baad kala hadhaysaayo makii yaxya aha ayagu soo hadal qaadin uu uri jiray baan u maraynayaa barigaan oo kaalay sawdigii gulaha markii hore wada udgoontahay maaha may khaaqun baad u ekaanaysaa moogtahay marka qofka saa u kala tagtaan baad buti u yara ekaanaysaa oo inaad markii hore mid caadi ahayn markii hore idin la socotay baad caadi ahayn maansadan marka waxay ka waramaysaa gabadh aan bari wada hadli jirnay bay ka waramaysaa suugaanyahanadu wararka qura intay bartaa soo fadhiistaan jacayl iska cadaystaan moogtahay wararka qura intay bartaa kaga sheekeeyay noloshooda gaarka ah dibadda la isku dabiibo marka dambana
gabadh aanu kolkaa wada socon jirnay waxa dhacday bayd maansada ku jira baa wuxuu saadinayaa inay nin aniga iga wacan hesho sidii bay markaa dhacday oo nin aniga iga wacan bay heshay baan u malaynayaa maalmo dhexdii ahayd bay guusitay markaa laakiin maansadani waxay ka waramaysaa marka uu xidhiidh dhammaado suugayahanku maansu ku soo khatimaa si uu xidhiidhkaa u ilaabo deed markuu heblaayo xasuusto maansadii buu xasuusanayaa maansadaasi dabadeed waxay ka saacidaa hablo badan ama rag badan inay xidhiidhada joojiyaan iyagoo oon dhibtoon laakiin kan wuu dhibtoonayaa marka hore markaa maansadan dheelmasha waxay ka hadlaysaa isfahmi waaga labada qof ku dhaca facebookan ku jiraa baad odhanaysaa kuma jirtid bay ku odhanaysaa waxaan kuu soo wadaa wixii maaha labada qof markay kala tagaan waxa lagu yaqaanaa ismaba fahmaanba maansada markaa waxay ku bilaabmaysaa isfahmi waaga hore kala taga laakiin waxa la socda kalgacal baa la socda qof iga wacan inaad heli doontaa la socda marka waxaan doonayaa inaad kalgacal yeelataan qofka haddaa wada joogtaan iyo haddaa kala tegaysaanba waa inaad kalgacal yeelataa waa inaad lexjeclo yeelataa qofkaas hadduu tagay iyo hadduu joogaba waa inuu isku mid kuu ahaadaa ilaan shalay adigu 5 qof maad ahayne dhanqalnaanta uurkaaga qaday danuhigoodkaaga waa isfahmi waagii dhanqalnaanta uurkaaga qaday danuhigoodkaaga dhafandhaaf ujeedada la gabay kala dhantaalnaanta isxaq dhowrka noloshaan ku dhafay iinta dhagaraysay fahan dhoofay maaguu dalbaday dhayiga ku hilaabtay ku dhawaaqa ereyaan danqaday aahda dhinacayga bar kaliyo inaad dhaaftay oo dhiiri kugu diiday dhul shishaan ka maansoonayaa dhaawac kugu yaalle judha aan dhigaabay hanti kale ma deegtoon ahayn gabay dhextaalkiise judha aan dhigaabay qalbiga dhiifiba'aysaaye dawo kale ma deegtoon ahayn gabay dhextaalkiise malahayga dhudayay siri way ku duganuune mar dhagayso adigay dibnuhu kuu dololayaane waqtigiyo ayaamaha dhibani way dhib badan yihiin dheef iyo wanaag iyo kol kale way duxdilan yihiin kololbaad galiilyada dhaxdaa yaa ku dhalan doorsha kol kalena dhexdeedaa tidhaa yaa ha dhiman sheega imtixaanka rabbi baa duldhigay duunyada mideede barashada intay ruux dheg wacan kuugu dhakab siiso qalbigaaga goortuu ku dhago amase dhuuxaaga kolka uu u dhaadhaco bogiyo dhuunta iyo laabta ayuunbay dharaar aanad filan kaa dhufsanaysaa noloshu intii qof yaro wanaagsan ku barta maad aragtay ayuunbaad subax kusoo toosaysaa qofkiiyoon ku ag jiifin haddii dumarku wuu ammaanayaa markaa haddii dumarku dhowr kale yihiin dhoocil iyo gaari dadigaad u tahay raalliyiyo dumar dhabeeshoode dheehaagu soomaalidu dheegga ku hayaaye xishood hooyo kugu soo dhaqdaad dhabu falaysaaye dhudhumbaad haween dheertihiyo badhiyo dhiidhiiye dhaqankaagu diin buu wataa garasho dhaadheere asturnaantu waa kuu dhar iyo sadadka dhiibsoone dhaashigaagu waa daacad iyo dhaxalka diimeede hadalkaaga ruuxii dugtaa wuu la dhacayaaye nindhigaaga caynkula ahoo dheegsan baad heliye rajadaadu yay u dhimantaydan dhigabeeshay markaa hore uu iska daray moogtay haddana uu sasabanayaa qof dhammaysi duunyada ma jira dhaadma badaneeye qofba dhinac madow buu sitaa gudcur dharaartiise aniguna dhigaasaan ahoo waan kaldhimanuune qirashaan astaan dheerihiyo huunna iga dhaafe raallidayda dhiilkaan isidhi dhaaxa ugu buuxi kol haddii abaalkaan dhambalay saaka dhidar qaatay kol haddii dhawaaqaan idhaa booga dhalinayo kol haddaan dhanaan kuu noqdiyo ruux ku dhilan waayey aamuskaan dhaqaaqiyo shibtaan tala ku dheegdheegay dheelmashadu waxay iga ahayd dhowro bilantaaye dhacdhacaygu beerkuu galiyo iidhay qalbigaaga haddii dhabanka ilmadii badnayd iima dhaxal siisay wadnahaygu dhagax maaha iyo walax dhadhaabeede dakafaarka waan kula qabaa dhabannahayskaase dhifdhif baan haween kaba dugsaday naadir iyo dhowre dhinacayga geestaa tirtay dhaxantu haysaaye la joogaagu hadduu dhaami karo waan isdhigan laaye dhangadaa xanuunkeed ba'daa saacad dherarkeede sow weli dhawaaqaadi tidhi dhuuxa kama taaho
dada maaha wacadkaan galiya dhaartu ideeye digaalkaygu waa kuu tixraac maalin dhacameede haddii guri dhismaha loo ayido dhaabadiyo seeska ma ogtahay dabaylaha dhacaadhayal maxaaqaane runtu waa dhexroorkii cishqiga udubdhexaadkiiye dhalanteed haddii loo yabyabo udub male la dhoobdhoobay sida dhayda caanaha haddaan waarig lagu dheehin dhala iyo waxay soo baxdaa shay dhashkaa odhane inta aanay beladaasi dhicin yaan dardaar dhahaye hayga dhigin sidii ruux ku nacay waan dhibsanayaaye way dhammaatay maasadaasna maasadii u dambaysay baynu akhriyaynaa maasad magaceeda deeqaa la yidhaahdaa deeqi waxa weeyaan iminka berigii hore ninbaa wuxuu yidhi haddaad gabadh qabto iminka samankan qarniga 21aad haddaad gabadh qabto waxay u dhigantaa adigoo 4 gabdhood qabay 2 qarni ka hor oo waaya baan ku nuli wuxuu yidhi berigii hore gabadha subaxdii un baa la arki jiray oo waa laga kalihi jiray habeenkii baa loo soo noqon jiray iminka laakiin telefoon bay sideetaay 5 jeer bay ku soo garaacaysaa buu yidhi marka waxay ka dhigantahay buu yidhi adigoo 5 dumar qaba oo waagii hore la awooyaashin hooyooy way ka kalihi jireen uno waxay u soo noqon jireen habeenkii Soomaa iminka laakiin waad sidataa buu leeyahay xaaskaagii moobilkaad ku sidataa waryaalkeed joogtaa marka wuxuu leeyahay dhibaatadii waad sidataa imako xaaskaagii waa telefoonka imako halkeed joogtaa habsaantii caaw maxaad qabanaysaa halkaasaan kugu arkay heblaaya kula sawirnayd maxaa kugu dhacay waad sidataa buu ku leeyahay imaka gabadhii moogtay marka 5 dumar waagii hore bay u dhigmaan imaka gabadh hadaad qabto waa sabahaydaan ula guursanay baan malaynayaa waxa weeyaan marka dumarku sida u fikiraan iyo raggu sida u fikiraan way kala duwan tahay ilaahayna markaad eegto sida la isugu beegay ragga iyo dumarka kan waxba laga qaaday kana la siiyay awood baa gabadha la siinayaa adaa laga qaadaya adiga awood lagu siinayaa gabadha laga qaadaya waxa la doonayaa inay wax isu keenaan baa la doonayaa kolka maasadani waa nin gabadh ka sasabanaya telefoon marka gabadhii 5 jeer ka xanaajiyay moogtahay marka telefoonkii bay ku dhigtay 2 cisho kamay qaban marka maalintii saddexaad maalintii afaraad bay ka qabatay telefoonka marka waa wada hadalkooda marka inay diyaar anfacada laga yaabo moogtay waa sidii abwaanada hablaha u jabsadaan baan malaynayaa iyadoo kooban kolka isaga hadalka bilaabaya telefoonkii baa dhacaya way qabatay markaa hello deeqay marka telefoonkaaga way garanaysaa numberkiisa codkaagana way garanaysaa laakiin markay rabto inaanay ku garan kuma garanaysaa gabadhu waa shardi kamida shardida leeyahay marka kuma garanaysaa marka laga bilaabo hello deeqay waa kuma marka ku oranaysaa markaas iyadu ismay nasakhin daana waan isnasakhaya markaa waa damiin iyo doqonkaagii maxaad doonaysaa markaa waxaad doonaysana way garanaysaa ilaa waatan telefoonka kaa qaban weyday laakiin marka laga bilaabo ma garanayso ku darsadayo buu leeyahay markaa ku darsadayo waan dabayshaday ku dib jirayo dibad yaalay hal daqiiqo kula doodaan ka dawaraya ma adigii wixii aan ogaa sameeyay baa marka doonayay waliba inaad hal daqiiqo ila hadasho tabuubtaada cudur iiga daran mar daawiya dabiibihe hay dagaalina codka ii daji oo baldamaq iyo daybal booga hambeerka daashiday marka wuxuu rabaa yoolka inuu bedelo oo yiraahdo sidaan kuugu darsaday maka eeg wixii hore iska dhaafo ma imika doonaysaa hadana istaafacdo inta adaygaaga ninkii wixii oo dhan sameeyay waliba ku celiyeen 2-3 jeer saamaxay ismada marka dumarku ay caado u leeyihiin haddaad khalad samayso gogasho dhan bay ku duudubeen imaad jeclaan waligaa imaad jeclaan noloshaada markaad soo guursatay xataa imaad jeclaan aniga hayo kaad halka gaarsiinay khaladkaasi bay imaad ku yiri kaad may noloshaada maninka waxa sameynaya jecel maba ii jecelid bay marka laga bilaabo marka muxuu leeyahay isma daaficin buu leeyahay marka isma daaficin dambi waan galay tirirtaada iyo dibindaabyada waa u dul leeyahay qayladaada waan u dul qaadanayaa anu laakiin waxaan u dul qaadanayn waxaan diiduun dareenkayga dafirayso waan yar daahaye maan darjeedinay kuunta sheegtay marun ii dabac
وقر ولا إن أنا كنت بعين بمكان كويس صوت الغات كيو سمير ظاهرة دقيقة كومتيد ما تسنى هانشرين ولا جانا دي 27 أنا قوام حمات وحنك برعي صوت الغات كيو سمير ظاهرة دقيقة كومتيد hablo dooro kula daa saw kaama dooranin ha saw dubaaqiyo qalbi duun jira daraad kuma siin wacad dooriyo ahadi aan dumin sawma daabicin dunidaydiyo soo dantaydii kuma daayicin sida daadkaan hadba daafiya doc garaacee jir dubaaxshiyo aaway diirnixi kugu diira wixii aan kaaga bartay dulqaadkaagii aaway markaa uu bedelayaa wax hore ku celinayaa wax ma kuu sheegaa telefoonka iyo dhig intaas ay ugu filan telefoonka iyo dhig tabalaab iyo midi doono hoo i dooxani naftan kuu diran adigoon dilin ila loo duwin jacaylkaan dabay seen u dagagari ma wixii tacabaad leedahay telefoonka dhig waliba iyadu qabsanaya moogtay gabadh kala raadsan adeer gabadh kala raadsan dumarku waa kuwa badane ilaa aniga mixnada ila dur saarnaan ma saabini maalin ay gabadh kala raadso heedha deeqay ileen diintiyo dabcigaaga ay daryeelo dabariyehe waan ku daynbe kolka aan dumo caradeedamo waxay daal tira oo ii daawo ah bal dawaafo doon oo keen iyadu leey gabadha doon moogti waligeedna gabadh kuma keenaysa iyadu markaa ila way ku jeceshay gabadh kuma keenaysa moogtay waligeed gabadh kuma keenaysa qof aadaar iyo guri dayrliya aad dugsoon u tahay ha iska dayrine indha dayralay aan ku daawado gudarooriya cirdaruur laay mandilaaciya dibna ubaxeey xidigaha dumarnal dagaaraay mugdigood damay cadceedda hureey ma waxaa dudi oodi dayrini markaan daymada cirkii daahnaa iska daayeen dayaxee idhi deeqay ugu filan markii qoreen cadceed iyo dayaxii ka maarmeen idhi deeqaay meesha ay leeynaysa ayaad iska tegaysaa inta adeegida sida doog baxay oo daruur helay ragga doorkaya aan dul dhaafe madidaysani mise diiftiyo heedha daranyada aan ku daa'imay wadi dayrini aad baa u mahadsantihiin dhammaan reer jisya ilaahayna shaqadaan ideeqday tana wiilwaaluda aynu bedelano halkuu lixlayno ugu bedelay inaguna wiilwaal iyo dhoodaan iyo sayidkaynu bedelano madasha waxaan rabaa inaan ugu yeedho nimco shaami oo guddoonsiin doonta abwaanka hadiyada ay ugu tala gashay nimca soo dhawaato nimco mar labaad iyo mar saddexaad baa loo sacabeeyay soo dhawna abwaanka la sii sogootiyo mahadsan yahay abwaan Dr. Yaxye Cabdi Cali oo loo yaqaano Yaxye Yeebaash mar labaad iyo mar saddexaad ba Yaxye waanu mahad celinaynaa inuu safarka inta leeg noo soo galo si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyartii soo abaabushay barnaamijkan oo ugu horeeyo afayeenka ururka Saymo Cabdisalaan Ibraahin mar labaad iyo mar saddexaad ba saaba loo tumo Yaxye dhan walba noloshu inooga qaado wuxuu yiri huunoy lama jira daleen waa halkii u dambeysay jacaylkan filaya hadal dambe oo ka dambeynaya ma jiro waxaan rabaa inaan u yeedho afayeenka ururka Saymo oo kelmadiisa halkan ka oran doona Cabdisalaan Ibraahin la soo dhaweeyay
marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan si guud intaanan ugu mahadcelin si gaar ah ugu mahadceliyo wasiirada sharafta leh maalinka aan programka bilownay ilaa maanta aan marna naga daalin waxaan rabaa inaad si niyad loogu sacabisaan waxaan rabaa fursaddan aan uga faa'iidaystay inaan idiin sheego maanta waxaan haysanaa fursadii hore ka duwan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan dalka inagu leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dal dhisan baa dal dhisan dadku markay dhisan yihiin baa dalka la dhisi kala gurigan haddaanan ninka injineerka muunan aqoon lahayn muunan dhiseen warmaynahay inteenan haddaanan aqoon lahayn maanta maanan isku imaaneen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirada sharafta leh waqtigoodii baynoo horeen iyagoo hurdaan garaacaynay oo noo mahadcelinaya aad baan idinkugu mahadcelinayaa qof kasta waxaan leenahay abaalkaaga ma gudi karno balse eebbe weyne hortiisa ayaad ka heli doontaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Dr. Yahye Abdi Ali Yahye Yebash abwaanku waqtigiisa adigaa uu noo soo horay muddo gaaban buu nala joogi doonaa hadday wasi badato hal maalin waxaan aad uga mahadcelinayaa codsiga iyaga ahaa inuu noo yimaado uu barnaamijka noo qabtay inuu noo fuliyey aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan la dardaarmo dhalinyarada ku dheeraan maayo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaynan inteennan wax ahayn oo midnimadeennu mid ahayn dalkeenna ma bedeli karo dadkeenna ma bedeli karno waa tii Yaxye inoo sheegay lahaa lahaanshiyo wax la yidhaahdaa jira gurigaaga haddii abeesa ku jirto adaa la rabaa inaad kala baxdid ku dheeraan maayo wasiirka iyo wasiirka xigeenku waxay rabaan inay program inoo sheegaan balse intaynan gelin waxaan rabaa inaan la daarmo ubaxan horteeda ka muuqda waxaan kaloo rabaa dadka idaawanaya ee odayaasha u badan inaan fariin u diro annagu siyaasiyiin mani annagu waxaan nahay ubaxii dalka iska lahaa dalka cidda lagala tashanaya ee la weydiinaya waa annaga cidda la rabo dalka inay ka tashato waa inteena bulshada afka Soomaaliya ku hadasha dhalinyaradu waa 57% taasi waxay ka dhigan tahay miisaaniyadda ummadda ama 100% inta ugu badan waayo waa innaga ma buuxin kaalinteena anu beedii sheegi maayo haddii aad noloshiina qabyaalad ku doorataan weligaa baanad magacelin weligaa baanad sumcad helin weligaa baanad sharaf helin adeerkaa hadduu wasiir yahay maalinka wasiir loo doorto albaabkiisa geli maysid beedii sheegi maayo wallaahi inaan gelin laakiin ku islaama oo mu'mina oo khaalisa maalinka wasiir laga dhigo albaabkiisaad garaaci qabiilisu markiin keenin dan baa sokin keentay lahaanshiyu dareemaya yacni qofkaas wuxuu ku dareensiinayaa inaad tahay ubaxii dalka usoo koraya marka aan xafiisyada tagno waxay noo sheegeen inaan nahay kuwii dalka iska lahaa waxay yidhaahdaan annagu waan idinka tegaynaa laakiin waxaan rabnaa inaad booska naga buuxisaan noloshu waa qori isku dhiib laakiin waxaad moodaa ubaxii dalku inuusan dareensanayn lahaanshiyo inaanan dareensanayn tan inaan inagu leenahay annaga ururka saymahan maalinkii dhawad program baa qabanay wasiirada naga soo qaybgaleen aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka miciisu wuxuu ahaa magaciisu hiil walaal waa lama huraan haddaad adigu dheregsan tahay haddaad qaraad xirata haysatid haddaad meelaad seexata haysatid qaar baa gidaarka jiifa qaar bay dhaxantu dilaysaa waa hooyo Soomaaliyeed waa aabba Soomaaliyeed waa walaal Soomaaliyeed yaa la rabaa inuu dalqado ma waxaan ogolaanaa qofka innaga nala dhashay inuu qofka la gacantiisa horsado maya annagu waxaan u asaasanahay ma aha inaan xafiisyada dowladda garaacno waxaan rabnaa qof kasta oo afka Soomaaliya ku hadla inaan ku dhaano 10 riyaal ee jeebkaaga ku jira keen cid buu wuxuu taray haddana wax ku taraynin intaad ku taklifalaysid dad bay noloshooda tahay idinku dheereen maayo barnaamijka labaad ee soo wado hordhac bay ahaa kolley gabagaba ku dhow yahay barnaamijka labaad ee soo wado waxa weeyaan oo rabnay inaad nagala qayb qaadataan waxaan rabnaa 150 qof oo dhalinyaro inay shaqaabo u sameeyaan magaalada Baalashka waa laga haystaa dukaamada waa laga haystaa bakhaarada waa laga haystaa
meel kasta oo muhiim ah laga haysta taas waxay ka dhigan tahay mustaqbalka bari wad guuraysaa meenahay يعني haddii aan inagu kaalintaa buuxin weyno oo intaan gacmaha isqabsanno dhawr wariyaa 10 urur baa la sameeyay 10 keena min hal qof soo saara kale shaqada buuxinay meena inaga waxaan noqonay dad wax loo yeeliyo laakiin inagu aan noqono kuwii ummadda wax yeeli lahaa inaga waxaan lagu yiraahdaa halkan mara waxaan rabaa inaan idin sheego oo idin dhaho war aan noqono kuwii wax yeeli lahaa kuwii ummadda dhila halkan malaha qurux badan in la maro waxaan idin kula dardaarmayaa u bixi dalkaana inaga u soo koreen odayaasha waxaan leenahay adeer hadaad ree hebel meesha ku joogtid oo nin hebel wasiir meesha ku keentid annagu adiga kula tashanayno qofna la tashanayno qofka annaga dhalinyarnimadana ogol inaan u bixi dalkanahay oo og inaan berri bedelayno kaasa annaga xaq ugu leeyahay waqtigayga siino laakiin oday maanta waxaa jira nin aan suldaanahay laakiin duubka xidho sama kuwaas ay la weeriyay inaga marka dunidu qabyaalada ka tagtay laakiin inagu waan joognaa waxaan 40 sano isku dirayna maanta taaganahay waxaan idin kula dardaarmaya oo mar kasta idin ku celcelinaya waa hadalkii ugu dambeeyay nolosha oo qoris u dhiib adigu waa tagaysaa qof walba raadka uu maanta dhigto bari waa la soo xasuusan doonaa hebel maalinku noolaa wuxuu ahaa haliyey wuxuu ahaa qof dadka isku soo dhaweeya wuxuu ahaa qof ummadda u naxariista ilaahay wuxuu yiri sidaad idinku isugu deernaxdaan buu rabbina idinkugu naxariisan doonaa aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad kaalintiina buuxin doontaan aad baad ciyaaraha wasiir Axmed Maxamed Minaan oo ku magac dheer Leebo soo dhaweeyay wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا الدليل إبراهيم بردمي إبراهيم waxaan ku faraxsanahay in aan nahay laba qof oo insha Allah isku fahmay shaqo diyaarna u ah sida Ibrahim sheegay inaan wax badan qabanno hadii la yiraahdo shaqo abuurkii koowaad waa hadda idin sheegay marka dadaalkaygu wuxuu yahay dadkeenu waxay u barteen accounti la barto oo wax la saxeexo laakiin sida Ibrahim uu yiri in 12 qof inta isku soo xirmaan 12 kaas boqol qof ay u shaqeyso 12 marka waxay noqonayaan waxa weeye waa maamulkii weeye marka fikirkaas sida ugu dhaqsiyaha badan lacagtu way taallaa ka faa'iideysta isku soo xirma xafiiska kaalaya shaqadii la wareega tan iyo caawinka ku soo noqdo dad badan oo halabuur la jira insha Allah waxaan rajaynaynaa bilaa soo socda in la arko inaga oo ku tartamayno Audio Jungle. Audio Jungle.